degmada Cegaag waxaa si rasmi ugu soo gabagaboobay Allabari iyo shirweyne ka socday muddo 3 maalmood isla markaana ay iskugu yimaadeen Beelweynta Xuseen Siciid ee Hayaaga isagoo shirweynahaasi uu ahaa mid ay beeshaasi ka tashanisay ayaheeda iyo waliba nabadgelyada deegaankaasi shirweynahan iyo Allabarigan ayaa waxaa ka soo qayb galay futbol laaran oo ka kala socotay gobolada Sool iyo Buuhoodle iyo waliba deegaanada hoos yimaada ugu dambeyntiina markii uu shirkaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay Boqor Cabdilaahi Axmed Cali isagoona boqorku ka warbixiyay ujeedada shirweynahaasi sidoo kalena waxa uu boqorku u duceeyay dadka deegaankaasi ee ka soo qayb galay Allabariga iyo kuwii aan ka soo qayb galinba waxaana uu yiri waqti dheer yaanu ku jirnay howlaha Allabariga waxaanu u Allabarinay marka hore ifiya aakhiraba Ilaahay inuu liibaan nagu siiyo aniga dadka Allabariga dhigay intii ka maqraatay iyo inta Allabariga dhigtay iyo intii uu shaqaysay iyo intii quraanka akhriday hadii qof ka baqay iyo hadii koox ka maqraatay hadii qoys ka maqraatay kulli waa wada ducaynaya Ilaahayna wuu qoraya qofba intuu ka qabtay marka anigu waxaan u ducaynayaa Allabariga dadka la bariyay iyo udiyada ay lahaayeen ee waalidiinta loola dhiyooday in loogu duceeyo ee Ilaahay lagu baryayo raxmadda ay barwaaqada uu siiyay Ilaahay ugu mahadnaqno oo nuqsaanteeda ka baqagalay Ilaahay oo sharooda Ilaahay ka baqagalo saasa Allabarigu ahaa wuu soo cabuuray loogu hirgalay rag baa xoolihii bixiyay rag baa shaqeeyay gabdhaha shaqeeyay عندي شقي صدق إلهي وحنا قبرينا إنه وقابل جدو في آخر وقابل جدو إلهي وحنا قبرينا كوا كباغدي الدعاء أي وحنا قطار يجرا الله بريء خير كسهران إلهي تاسو قر صدق قر بقراك إلا النبي إلهي هو قراك دوس الرسول كي يجدوه سو ديبت إلهي ساتر ورعا وآخر سنة إلهي ناقبل إلهي رب جدو وراقنا وكاد دورنا إلهي خير الرسول كي يجد محمد كابريا ونبار كابريا إلهي شرك الرسول كي يجد محمد كما قال يا دبر كما قال إله صوماليدا يا إسلام كودن نبض برواقة عافماد إرتيسان كوبرينا إله إسلام كودن دبت ككرقة إله صومالي دبت ككرقة إله بيرها دبت نوع كرقة إله كلمها نوع كرقة إله ودت كيسود دوي إله ودت كيسود دوي إله قرآن كاجا يا الله برياق عيار ما هو وحيل قل لي بره إله ناقبل كانوا حوي بلغ دقمة عقاق تاريخي جها waxay isugu timi beeshii Hayaag dhamaanteed bishii Soon 15keedii yaa Boqor Cabdilaahi Axmed Cali uu alcaamiyay Allabari beeshu leedahay kiiba maanta dhacay alxamdulillaah rabbil caalamiin beeshira way dhanta waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa ummadda isu timi darisyada darafyadayada alxamdulillaah ummadii waa taadi hadda kala jeesatay aad iyo aad baan u hambalyeeynaa waxaan joognaa Allabarigii weynaa caamka ahaa ee beesha Xuseen Siciid waxaan u leenahay ma sha Allah tolku dhamaan halkan isugu yimid wuxuu ka tashanayaa oo ka wada hadlayaa oo ka bedelayaana waxa weeyaan nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa iyo aayihiisa dhalinyaro ahaan iyo aan uga hadlayna waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa waxa la wixii wanaaga إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبرينا إن موافقة النوافجيو وصدق خير للنوافجيو أو هداية دي هنون كيو محن كره هذا هنون كإلهي النوافجيو إلهي سبحانه وتعالى كبرينا الله برجع يا الله بريدة كلا كوحجة يوح كسته وحنا لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى هنوفض يو ما أنت أي بشو تهاي صدق لا تنكي بش الحياة لو تكون يسدي طبعاً إن نشوفنا دقمة العقاق ماشان برواقة هي عاد كوقروح بدن تهاي بلقي العقاق oo halka lagu qabtay Allabari oo ciidankiisu horeeyay oo Ilaahay suurta galiyay inuu hadda dhaco marka Allabariga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa dad aad iyo aad fara badan baa ka soo qayb galay waxaan ka soo qayb galnay Allabari ay magaaladu dhigatay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ku bariyeen ay xoolo qaleen dad badan oo khiyaar ah oo gobolada ka kala yimid dhalinyaro ahaan iyo aqoon-yahanahana runtii aad baan u dhiirinaynaa dadku inay isku yimaadaan oo waxa khayrka ah ay meel kale ka yimaadeen Buuhoodle Hargeysa Burco Laascaanood Garowe iyo meel kaleba Ilaahay baa mahadle ugu dambeyntina shirweynahan ayaa ku soo gabagaboobay jawi farxadeed waliba Axmed Ciise Liibaan Qaran Somali News TV Cegaag